وقاشة وحقرت كوايلك يا حلبانادن oo kulan warbaahineed ku qabtay degmada Wadaamago oo ka tirsan gobolka Saraar ayaa eedeymo ka difaacay agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Cabdisaaq Jaamac Nuur eedeymahaas ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka deegaanka Coodanle oo ku saabsan muran ka taagan riiga Coodanle waxaana odayaasha waxgaradka iyo xildhibaanadana sheegeen in raaligelin ka siinayaan agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha eedeymaha ay u soo jeediyeen odayaasha waxgaradka deegaanka Coodanle waana kuwan iyagoo arrimo kalaba ka hadlaya waxaan leeyahay haddaan nahay Wadaamago degmada waxa aan shirkan jaraa'id ku qabanay ee isugu nimid qorshaha ka dhacay Coodanle ee soo gaaray waxaan ka bixinaynaa arrinta ka dhacday Coodanle xaal iyo booljiis baan ka bixinaynaa marka hore waxaan agaasimaha guud ee lagu gafay ee aan mutaysan aflagaadada aan mutaysan ee reer Coodanlena ka mutaysan Soomaaliland ka mutaysan shahaada sharaf in lagu maamuuso mutaysna in aflagaado hawada loo mariyay raashada aad baan waxinahay arinta ka dhacday Coodanle ee aan ku wada socon deegaan raaligelin xaal ka siino agaasimaha guud ee wasaaradda biyaha hadalkaas aanu geeyin oo shaqo ku lahayn oo waxa loo misbeeyay in shaqo kale aanu ahayn waxa kale oo jirto walaalaha Coodanle aan leenahay waxa tiraaheen iyo waxa aad ka cadanayseen way kala weeyeen waxa aad tiraaheen baa weey waxa aad ka cadanayseen waa wax iska yar oo laga heshiin lahaa midda kale mas'uuliyiin badan baa idin timi oo meesha idin ku timi waxba ma idin wada oran ninba ninka ataagteen aad iyo aad baan uga xunnahay agaasimaana xaaliya booljiis baan agaasima arinta ka siinay qoyskaagaan ka siinay adaanu ka siinaynaa sida adiguna ayaad ku mahadsan tahay waxna ha ku qaban hadalkii halka ka soo baxay waxaan ka hadlaynaa aflagaadada ka dhacday Coodanle taasaanu ka hadlaynaa maaha Barre Cabdille waa beel badan haddaanu degmada Wadaamago nahay anagu hadalka raali kama ahin waxaanu ka bixinaynaa xaal iyo booljiis haddaanu nahay degmada Wadaamago waanu ka xunnahay munaasibna maaha arintaana xaal iyo booljiis baanu ka bixinaynaa aan ka siinaynaa agaasimaha guud ee waaxda biyaha hadaatii markaa beesha Coodanle tiri waxaanay beesha Barre Cabdille aan maanta waanu ka baxnay xisbigii kulmiye waanu ka tagnay waxaanu nahay beesha Barre Cabdille wareerga isku meel waafaqsanay isku maanaynu raacinayno eraynu isla ogol lahayna maaha waxaanu leenahay wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha idinku yimi wafti ahaan xigaalnimo wiigii horena u qaylineyseen odayaashii wasiiradii qolooyinkii ay ku gafteen agaasimayaashii waxaanu siinaynaa garow waxa maanta oo bisha ay tahay 15kii bishii 9aad 2017 aanu halkan kaga hadlaynaa shirkan jaraa'id odayaasha iyo waxgaradka iyo haddaan nahay xildhibaanadii deegaankaba dhacdo ka dhacday maalin dhaweyto deegaanka la yiraahdo Coodanle oo ay runtii kaga hadleen rag halka jooga dad halka joogo reer Coodanle kuna hadleen afreer oo reeraysan kaasoo lagu maagayay mas'uuliyiin ka soo jeeda deegaamadan waxaanu runtii cambaaraynaynaa hadalkii halka ka baxay ee khaldanaa oo ay ku hadleen ay yiraahdeen haddaan nahay beesha Barre Cabdille waxaanu cambaaraynaynaa magaca ay ku hadleen waxaan leenahay ma oran karaan oo afka ma laha oo kuma hadli kartaan deegaan Coodanle ku hadlaan way u furay laakiin waxaanu ku haysanaa oo aan maanta jawaabteeda bixinaynaa afka haddaan nahay beesha odayaashu taasay ku hadlayaan waxaan leenahay reerku wuxuu leeyahay siyaasiyiin wuxuu leeyahay cuqaal wuxuu leeyahay waxgarad kuwaasaa ku hadli kara afka reerka iyaguna waxay ku hadli karaan marka reerku loo og yahay waxaan la iska ogeynina kuma dhaqaaqi karo nin xoolo dhaqato ah oo deegaan jooga inuu u hadlo nooca waa waxaan wacnayn waxaanu doonaynaa inaanu xaal iyo booljiis ka siino ninkii mas'uulka ahaa ee lagu maagayay halka ee afka reeraysan lagu la hadlay waxaanu halkan u nimaan doonaynaa maanta inaanu raaligelin ka bixino hadal ka soo yeelay odayaal reer Coodanle runtii iyagu siday hadalka ugu jeedeen iyo sida loo fahmay annagu hadalka waxa loo fahmay personal attack
arrintaa marka ugu horeysa raaligelin baanu ka bixinaynaa waayo dee afka reerka cidda ku hadasha waa la yaqaana cuqaali kuma jirin xildhibaano iyo odayaal kale kuma jirin dee waxay shakhsiyaad sheegtay magacii reerka arrintaasi arrin deegaanka iyo dadka wuxuu dhibaysay weeye waxaan leeyahay idinkuna arrintaa dee yaan laydinku maqlin raaligelinna ka bixiya annaguna haddaanu nahay deegaanka wadaamago weliba odayaasha dee wixii reerkan Barre Cabdille gaar ahaan arrintaa raaligelin baanu ka bixinaynaa waxaanu ka siinaynaa agaasimaha guud oo dee waxqabadkee waanu ogeyn wixii uu qabtay agaasimahaasi intii uu joogay wasaaradda deegaan ahaan wax weyn buu noo qabtay reer Coodanlena way ogaayeen abaartiina soo martay waynu ogeyn abarji si riig dee isaga iyo wasaaraddiisu ay ka howlgashay baa loo taag ma aha maanta in lagu hadlo xubin yar oo agaasimaha guudna runtii aad iyo aad buu Soomaaliland iyo deegaankaba wax ugu qabtay inta riiga uu kiciyay Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko telefishinka caalamiga Star Aynaba